السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين با كسر هذا مقال عصب مقال كنا ما أنت وحينوصي السعودة كورس كنا human anatomy chapter كيس اللي بعد إن شاء الله بلا بدونا أو لغة مقعبة السل أما أونك وح لغة مقعبة واي وأنا قصة كذي حدي في عديد بلا إن شاء الله يدرس السعود سندون إن شاء الله السعود ونكسن learning objectives أهدافته أن كبرن دون 10 at the end of this chapter كان markuu dhamaado the students ardaydu should be able to inay awood u lahaadaan define inay qeexaan selka wuxuu yahay ay sheegaan aan cell types iyo noocyada selka loo qaybiyo inay wax ka sheegaan understand inay fahmaan cell theory aragtida selka inay fahmaan describing inay markaa sharaxaan cell structure-ka ama qaab dhismeedka selku leeyahay iyo markaa shaqadiisa inay wax ka sheegaan way what is a cell muxuu yahay a cell waxa weeye waa the structural and fundamental unit of life waa the structural waa qaab ahaan iyo markaa aasaas ahaanba oo waxay markaa noloshu ka samaysan tahay ayaa la yiraahdaa cell ama unug la yiraahdaa the study of cells barashada la baranayo unuga from its basic structure la baranayo qaab dhismeedkiisa aasaaska u ah to the functions iyo shaqooyinkeeda of every cell organelle kastaba la baranayo is called waxa lagu magacaabaa cell biology baa la yiraahdaa barashada cilmiga la baranayo hadii tahay qaab dhismeedkiisa iyo hadii tahay markaa shaqadiisa iyo wuxuu qabto iyo organelle kastaba wuxuu qabto waxa lagu magacaabaa cell biology baa la yiraahdaa Robert Hooke was the first biologist who discovered cell wuxuu ahaa ninka lagu magacaabo Robert Hooke wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay biologist ee markaa shaaca ka qaada ama daaha ka qaada cellku wuxuu yahay ama unugu wuxuu yahay way cellska unugu are the building block waxa la yiraahdaa waa aasaaska of all living being dhammaan noole kastoo nooli meeshu ka soo asaasmaa waa cell ayuu ka soo asaasmaa they provide wuxuuna siiyaa cellku structure to the body qaabka ayuu jirka ayuu qaab siiyaa and convert waxaanu bedelaa the nutrients nafaqooyinkii taken from the food aan cuntada ka qaadanay into the energy tamar ayuu bedelaa nafaqooyinkan cuntada ka helayno tamar ayuu bedelaa cellsku are the complex waa kuwa isku dhafan and their component qaybaha ay ka kooban yihiin perform waxay gutaan various functions shaqooyin kala duwan ilaa organism ay gutaan noolaha markaa nool way cellsku waxa la yiraahdaa waa the lowest level of organization waxa ugu hooseeya markii nolol bilaabanayso waxa ugu hooseeya in every life form nolol kasto jirtaaba waxay ka soo bilowmataa waa cell weeye from organism to organism noolaha kale the count of cells tirada ee cellska ay leeyihiin may vary way ku kala duwan yihiin oo adiga iyo xayawaanka kale isku markaa ma tihidin unugyo ma tihidin human isku bilaadanku have more number billion of cells tira unugyo aad u badan bay leeyihiin compare marka la barbar dhigo to that of bacteriada kale marka la barbar dhigo tira unugyo bay leeyihiin way haddaba hadaan u galno cell typeska noocyada cellka loo qaybiyo there are waxa jira many different types of cells waxa jira noocyo badan oo unugyo for example tusaale in you adigu there are waxa leedahay blood cells baad leedahay unugyada dhiigga casas skin cells baad leedahay unugyada maqaarka bone cells baad leedahay unugyada lafaha aan ifan xitaa bacteria ayaa xitaa jirkaaga laga heli karaya oo iyadu markaa shaqooyin ku qabanaysa way haddaba two types baa loo qaybiyaa laba nooc baa loo qaybiyaa cellska unugyada kuwa la yiraahdo prokaryotic iyo eukaryotic prokaryotic cellsku waxa la yiraahdaa usually caadi ahaan waa single celled baa la yiraahdaa waa hal unugley aan smaller wayna ka yaryar yihiin dan eukaryotic marka la barbar dhigo eukaryotic cellska haddaba eukaryotic cellsku are usually caadi ahaan form waxa laga helaa in multicellular organism waxa laga helaa multicellular many cells bay leeyihiin eukaryotic waa many cells weeye haddaba prokaryotic cells hadaan u yara galno prokaryotic cellsku are the cells waa unugyadaasoo daad dhugna taaf aan lahayn true nucleus male aan membrane bound organelle xub ku dahaaran organelladana malaha labadaasba male way prokaryotic cellsku are single celled microorganism waa hal unugley baa la yiraahdaa waa noolayaasha leh halka cell kaliya tale known waxa loo yaqaanaa to the earliest on earth wana wixii ugu horeeyay ee lagu ogaado markaa dhulkeena prokaryotigu include waxa kamid ah bacteriada iyo archaeada ayaa kamid ah prokaryotic cell consist wuxuu ka kooban yahay of single membrane hal xub bay leeyihiin and therefore sida daraadeedna all the reaction akar halkaas reaction code ama falgal code halka xub bay ka dhacaan within the cytoplasm marka lagu dhex jiro cytoplasmaha they can be free living si xor ah ay marka u nool yihiin oo ama parasitic
si xor ah bacteria virus fungi meelka hawadana wad ka wada helaysaa si xor ah marka ay u nool yihiin way astaamaha lagu garto prokaryotic cells waxa weeye they lack a nuclear membrane malaha wax nuclear dairy haday tahay oo powerhouse of the cell ka Golgi body chloroplast haday tahay and lysosome are absent dhammaan marka organeladan ku soo tiriyo dhanba ama structureskaasi way ka maqan yihiin marka prokaryotic cells kala joogo the genetic material is present on a single chromosome hal chromosome bileeyin xaga bilaadanku 2 chromosome ay leeyihiin oo 23 from mother and 23 from father ay bilaadan ka sameysmaan iyagu waxay leeyihiin hal chromosome bileeyihiin hal unugna way leeyihiin nuclear membrane ma laha way eukaryotic cells ka hadaan u galno eukaryotic cellsku waxa la yiraahdaa waa cells waa unugyadaasoo that contain ay ku dhex jiraan membrane bound xubkii membrane kale nucleus ka xubka nucleus ka membrane ka ku dahaaran leh aan organeladooduna membrane bileeyihiin amal saa waxa looga jeedaa marka nucleus bitan leedahay way hadaba eukaryotic cells waxa la yiraahdaa have a nucleus bileeyihiin inclusive with the nuclear membrane taasoo ay ku sii xiran tahay nuclear membrane form waxayna sameeyaan large and complex organism bi sameeyaan protozoa fungi plant and animal all have eukaryotic cells dhammaan kuwan ku soo sheegay baday tahay protozoa fungi-ga plantiska iyo animaliskuba dhammaan waxa loo yaqaan kuwaas oo waxa weeye waa eukaryotic cells bi leeyihiin amal mani cells bihe leeyihiin baa looga jeedaa salal badan bi leeyihiin way astaamaha lagu garto maxaa kamid ah characteristics of eukaryotic cells ka astaamaha lagu garto eukaryotic cells waxa kamid ah eukaryotic cells have the nucleus bileeyihiin enclosed with the nuclear membrane nucleus taasoo ay ku dahaarantahay nuclear membrane ay ku dahaarantahay ay leeyihiin the cell has a mitochondria amal powerhouse of the cell kina tii energy-ga dhalinaysa organic energy keenayna waa ma dhalinayna way leedahay the cells unugyadani divided waxa loo qaybsamaan by process called mitosis way kala qaybsan mitosis 1 iyo mitosis 2 iyo waxa ay kala baxaan the nucleus containing nucleus tooduna contains waxay leedahay a single linear DNA bilad which carries ka soo qaada all the genetic information dhammaan hidda-wadahoo dhanba kaasa marka qaada DNA bileeyihiin linear DNA amal 2 chromosome bilad way hadaba cell theory hadan isla eegno aragtida cellku maxay sharaxdaa aragtida cellku waxay sharaxdaa all living organisms are composed of cell and cell product dhammaan organismo kasto nooli wuxuu markaa ka soo jeedaa cell iyo cell product maxsuul cell oo adiga hooyada ay baabad ka soo jeedaa marka waa saas weey hadaba cellku is the basic unit waa asaaska of a structure haday tahay qaab ahaan iyo markaa function iyo shaqo ahaanba haday tahay of all living organism nool kasto markaa nool all cells dhammaan cells koodham come from waxay ka yimaadaan the division qaybsan of pre-existing cell hore u jiray qaybsankii ayay markaa ka yimaadaan way two main parts of cells hadan isla eegno labada ugu muhiimsan ee loo qaybiyo cellka hadan isla eegno plasma ama cell membrane baa loo qaybiyo ama plasma membrane ama cell membrane dhaho isku macnee waa xubka ugu sareeya it's the outer waa ka ugu membrane waa xubka ugu sareeya of cell unug ayaa loo yaqaanaa cell membrane plasma membrane magacyadaas saas kale separating waxa uu kala qaybiyaa the cell unuga internal part qaybtiisa gudaha from the external fragment banaanka marka cellka labadaas marka kala qaybiya wixii gudaha ku jiray wixii banaanka ku jiray ayuu marka wuxuu yahay xayndaab waa xuduudii cellka ayaa la xuduudii cellka way cytoplasm hadan isla eegno qaybta labaad ugu muhiimsan cytoplasm is the substance waa ashiyadaas oo that surrounds ay ku wegaarsan yihiin organelles structure ama organelo and is located kuwaasoo markaa dhaca between inta u dhaxaysa the nucleus iyo markaa plasma membrane xubka markaa xuduudan ku soo sheegnay iyo markaa nucleus oo caasimadii ah unuga labadaas markaa u dhaxaysa cytoplasm kuwana substance waa ashiya dareere way structure ahaan waa kuwano animal cellka iyo plant cellku labadooduba structure ahaan midna waa spherical midna waa square way kala duwan yihiin way organelle sidaan u galno an organelle is a name waa magac for the small organ baa loo yaqaanaa like a structure waa qaab that you can find kawaasoo laga dhexelo inside of cells unugyada laga dhexelo for example salahan the nucleus itself nucleus ama buuda unugu itself la fahanteedu waa an organelle yada organelle way
haddaba cell membrane haddaan u galno cell membrane-ku plus membrane magaciisa kale waa la dhahdaa waa isatin outer membrane waa xuub dhuuban oo xagga sare laga helo which maintains kaasoo markaa joogteeya the integrity ishaysashada of the cell unugu ishaysanayo it keeps wuxuu ilaaliyaa the cell unuga and it is content separate iyo waxyaalaha markaa ku dhex jira inuu kala qaybiyo and distinct una diido from the surrounding waxa xagga sare jooga xagga banaanka selka jooga iyo waxa gudaha ku jira ayuu kala qaybiyaa it's a double layered sagiba lagaga sii sheekeynayo lakabyadiisuna waa double waa laba cabir ahaana measuring about waxa lagu cabiraa 4.5 nanometer and made of wuxuu ka samaysan yahay phospholipid cholesterol iyo markaa carbohydrate buu ka samaysan yahay way functions shaqa ahaan separate wuxuu kala qaybiyaa the cytoplasmka gudaha insert gudaha ku jira ee cell from the extracellular fluid dareeraha kale banaanka cellka ka jooga sida markaa biyaha cellka de banaankiisa ka jooga iyo markaa kan oo de cytoplasm isaguna dareera ah labadaas buu kala qaybiyaa xad buu kala yahay waxa kale uu xad u yahay oo separate uu kala qaybiyaa cell unuga from one another midka kale inuu taabto in isdhex galaan ilaa waxaan idhay eukaryote waxay leeyihiin balaadamka kale waxay leeyihiin many cells leeyihiin many cells ka leeyihiin de cellkaas oo dhan soo isma dhex gal lahayn marka xuduudaas marka Ilaahay kala sameeyay xuubkaas Ilaahay kala sameeyay marka regulate wuxuu joogteeyaa the passage wadada of materials ashyaada into and out of cells ashyaada soo cellka marka galaysa ama ka baxaysa ayuu marka controla cidii marka cellka ka baxaysa iyo cidii soo galaysa membrane-kaas soo agmarayaan membrane-kaas marka control iyo wuxuu soo fasaxi karana soo fasaxaya wuxuu marka sii deyn karana uu sii deynaya way cytoplasm haddaan u galno cytoplasm waxa la dhahdaa waa gelatinous liquid bala waa dareere isjiidanaya camal like honey oo kale isjiidanaya that fills ka soo buuxiya the inside of cells unuga marka gudihiisa buuxiya it's a composition wuxuu ka kooban yahay of water bio salts milix and various organic molecule iyo organic molecule marka nool ayuu marka ka kooban yahay qaar kamida intercellular organisms kuwa gudaha ku jira sajaas waxa kamida nucleus tiba kamida oo boodi unuga ama caasimadii unuga and mitochondria oo kamida powerhouse of the cell ba kamida oo mitochondria waa energy ay soo saartaa are inclusive kuwa laftigooda waxa ku sii xiran by membrane xubaba ku sii xiran nucleus to nuclear membrane bilad mitochondria membrane bilad xubaba iyaga ku dhow soo xiran that separate kuwa soo dam iyaga from the cytoplasm kala qaybinaya amal biyahan ku jira markaas cytoplasmka ay dhex marayaan nucleus haday tahay iyo haday tahay mitochondriadiiba de way u soo gal lahayn biyahani marka inay soo galaan waxa uu diidaya waa xubkan marka iyaga qudhooda laftigooda ku dahaaran way hadaba shaqa ahaan ama functionska protect waxay ilaaliyaan from damage cytoplasmku wuxuu ilaaliyaa protects them from damage dhaawac ayuu ka ilaaliyaa cellka it stores wuxuu kaydiyaa the molecule ashyaada required for cell-ku u baahan yahay isaga kaydiya responsible wuxuu mas'uul ka yahay for giving cell it is shape inuu markaa cellka siiyo qaabkiisa inuu markaa siiyo way nucleus dan galno nucleus waxa la dhahaa oval waa sida like oval oo kale waa sida beedka oo kale in shape qaab ahaan and is the largest structure in the cell waana tawgu waa qaab dhismeedka ugu weyn weeye in the cell marka uu gala joogo functions shaqa ahaana contain waxay markaa ku dhex jira the heredity factor hidawadihi baa ku dhex jira in the cellka oo adigu iyadoo kaanasa xagan baa laga go'aamiyaa nucleusta control wuxuu markaa control cell activity-ga wax qabadka cellka ka dhex soconaya iyo structure-ka qaab dhismeedka markaa cellka isaga markaa control-ka u haya waayo nucleustu waanay ku soo sheegno waa bood unuga marna waanay ku sheegno waa caasimada unuga caasimaduna shaqadeedu maxay tahay inay dhammaan inay gobolladoo dhan baa meel walba inay markaa control-keedu u hayso taasina waa taawiye way ribosome-ku waa small organelle waa organelle yar weeye kaasoo la xidhiidha in the process ama habka of making lagu sameeyo proteinka isagoo proteinka ayuu qaabilsan sameeyo which is called taasoo lagu magacaabo protein synthesis la yiraahdo ama sameynta proteinta ayaa la yiraahdaa functions shaqa ahaana shaqadiisa ay waxa weeyeen waa side of protein synthesis way wax kala ma qabto proteinta ayuu soo saaraa isagu endoplasmic reticulum waxa la yiraahdaa waa is large waana ka ugu weyn marka laga imaado nucleusta dynamic structure waa mid qaab dhismeed isbedbedela that surface ka soo many roles ka soo marka ka ciyaara doorar
marka aad muhiim u ah in the cell marka cellka la joogo way si isu bedbedelayaan eegno endoplasmic reticulum kan either be mar wuxuu noqdaa smooth buu noqdaa smooth endoplasmic reticulum baa marna wuxuu noqdaa rough endoplasmic reticulum buu noqdaa and in general guud ahaan it is function shaqadiisu waxa weeye is to produce marka soo saaro protein soo saaro for the rest of the cell markuu warmu soo saaraya markuu cellku ku jiro restiga ku jiro to function markaas markuu shaqeynaya markaas uu shaqeeyaa isagu way haddaba the rough endoplasmic reticulum has on it la fahantiisa rafkaas wuxuu leeyahay ribosome buu leeyahay which are kaasoo small yar round organelle marka round camal sida circle ka kala ah whose function shaqadiisuna ay tahay it is to make inuu markaa sameeyo dose of protein inuu markaa sameeyo sometimes marka qaar when those protein are made improperly marka si aan habboonayn loo soo saaro camal la farabadiyo proteinkii the protein iski stay waxay markaa joogayaan within the endoplasmic reticulum markaas lagu haynaya lama fasaxayo markii kale loo baahdo in inta kale la fasaxay as a store way kayd ahaan oo kale on the other hand dhinaca kale markaanu eegno smooth endoplasmic reticulum largely associated isagu wuxuu aad ula xidhiidhaa with the lipid ama fat manufacture in la soo saaro fatka ama dufanka in la soo saaro ayuu isagu inta badan la xidhiidhaa it sometimes mararka qaar also helps wuxuu caawiyaa in the metabolism of lipids samaynta la samaynayo ama dheef samaynta la samaynayo fatka ama dufanka la samaynayo an associated productga in la soo saarana uu ka qayb qaata isaguna marka smoothku shaqadaas isagu hayaa u gaar u leeyahay xaggu rafkuna gaar u leeyahay inuu proteinta sameeyo oo ribosome baa isaga gudiisa laga helaa kan ribosome lagama hele smooth endoplasmic reticulum uu isagu fatka inta badan la xidhiidha inuu soo saaro si guud endoplasmic reticulumku proteinta ayuu la xidhiidha marba dynamic uu isbedbedelaya marka wax soo soconaya way shaqa ahaana calcium storage wuxuu kaydiyaa calciumta wuxuu protein synthesis proteinta ayuu sameeyaa lipid metabolism iyo dufanka ayuu soo saaraa ama sameeyaa metabolism sameeyaa marka way Golgi apart saasanti Golgi apart also called waxa loo yaqaan Golgi complex-na waa la yiraahdaa or ama Golgi burina waa lagu magacaabaa near wuxuu u dhow yahay to the nucleus ayuu u dhow yahay it consists waxaana loo qaybiyaa 4 ila 8 leeyahay membraneous kishash xubab ah ayuu leeyahay kaasoo marka 4 ila 8 ah shaqa ahaana wuxuu responsible ka yahay for transporting inuu markaa qaado modifying inuu qaybiyo and packaging inuu xareeyo proteinski la soo saaray iyo markaa lipidski la soo saaray labadaas ba inuu shaqadoodu waxay tahay inuu isagu qaado qaybiyo salalkii kale ee u qaybiyo iyo markaa inuu packaging xareeyo wixii kale soo haray way mitochondriadu shaqadeedu are known as waxa loo yaqaanaa the powerhouse of the cell baa la yiraahdaa maxaa yeelay it's responsible waxay mas'uul ka tahay for the extracting in soo saarto energy tamarta shaqa ahaan waxa la generate waxay dhalisaa energy-ga tamarta way lysosome-ku waa important organelle muhiim ah that help because inaga caawiya breakdown inaynu burburino or ama digest inaynu markaa dheefshiidno certain materials-ka inside the cell-ka gudihiisa ku dhex jira cell-ku waxyaalaha soo cell-ka gudihiisa waxyaalaha uu liqo uu isticmaalayo uu tamarta ka dhalanayo isaga dheefshiidaya lysosome-ka dheefshiidaya taasina markaa waa taa way shaqa ahaan wuxuu yidhaa enzyme-ka wax burburiya ee markaa cell-ka laga helo killing wuxuu dilaa of intracellular pathogens-ka soo weerarana isaga markaa laaya wuxuu markaa repairing dayactirana cell membrane-ka xuubkii aan ku sheegnay xuduudda ay markaa cell-ka uu leeyahay kaasuu markaa dayactiraa way cilia and flagella waa cell organelles waa qaab dhismeed cell-ku leeyahay those are kaasoo structurally qaab ahaan similar ay isu eeg yihiin cilia iyo flagella qaab ahaan way isu eeg yihiin laakiin different waxay ku kala duwan yihiin lungs dhararka iyo markaa function shaqada way ku kala duwan yihiin hadii qaabka isku mid ka yihiin shaqada iyo dhararka way ku kala duwan yihiin cilia are present waxa laga helaa bronchus in the lungs kiishaha waxa laga helaa bronchuska ama kiishashka waxa laga helaa sababkeenu leeyihiin waayo xagga flagella can be found laga helo bacteria-da iyo markaa sperm cell laga helo shahwada markaa ragana laga helo sperm cell-ka way siiliyadu are shorter way ka yar tahay dan marka la barbar dhigo flagellada way siiliyada ay yar waa timo yar iyadu way flagelladuna adin dheer bilaada sida sawir halkan nooga muuqataba function shaqa ahaan responsible waxay mas'uul ka yihiin for movement of the cell waa unuga meesha waa cell-ka socodka cell-ka iyaga qaabilsan inuu socodku socdo oo meel ka tago meel kala aado iyaga markaa qaabilsan
سيليا wadiga arkayo waa shorter way timaha ay RB leedahay xagga falacheeladuna hal adin leedahay ka kaliya ta marka ku soconayo marka langas ahaana iyadoo aad buu uga dheertay marka la eego Siiliyada ani question wax su'aalo kala hadal qabtaan insha Allah xagga commentiga igu reeba insha Allah waan ka soo jawaabi doonaa casharkan haddaad u baahataan insha Allah isagana waa idin soo diri doonaa ending be ready to the next lecture ka xiga marka diyaar u noqda aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته